kulan wanaagsan daawade waa mar kale iyo warbixin xiiso badan oo ku saabsan sharaxaadda indhasarcaadyada. Si gaar ah waxaanu ku eegi doonaa indhasarcaadyada uu soo bandhigay sanadkan indhasarcaadyaha weyn ee heerka caalamiga gaaray ee lagu magacaabo Shim Lim, kaasoo sanadkan ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ah ee indhasarcaadiyaasha isagoo lagu abaalmariyay lacag $1 milyan oo dollar ah. indhasarcaadka koowaad. xeeladda indhasarcaadkani waxa ay ku saabsan tahay qalin si kadis ah ku qarsoomaya. dabcan xeeladda indhasarcaadkani waa mid cajiib ah, aadna u xiiso badan, sidaas oo ay tahay waa mid aad u sahlan oo qof kasta oo isku daya uu samayn karo. Shim Lim qudhiisu waa xeeladda ugu sahlan xaggiisa oo uu soo bandhigay, sababtoo ah xeeladani waxa kaliya ee ay ku tiirsan tahay waa dhaqsi badnaanta iyo farafudaydnimada indhasarcaadyaha uu ku tababartay. kaliya waxa uu sameeyay qalinka ayuu ka dhigay in uu gacanta midig ka qaadayo isaga oo gacanta bidix u dhiibaya, laakiin isla gacanta midig ayuu faraha ku laabay kadibna si dhaqso badan ayuu jaakadiisa u dhexgeliyay, halkaas ayuuna ku qariyay sidan oo kale. dabcan sidaan idin sheegay khiyaanada iyo xeeladda uu indhasarcaadkani ku tiirsan yahay waa degdegsiimada iyo furfudaydka indhasarcaadyaha. indhasarcaadka labaad. kurjin turub ah oo inta baakad lagu dhex riday kadibna si kadis ah loo waayay. xeeladani waxa ay ka mid ahayd silsilad xeelado indhasarcaad oo aad u dheer. indhasarcaadyaha Shim Lim ayaa soo bandhigay, laakiin annagu hadda waxaanu ka soo qaadanaynaa oo keliya qaybtan oo aan u aragnay in ay aad u xiiso badan tahay. indhasarcaadyuhu turub badan oo hal kurjin ah ayuu ku shubay baakadda turubka, kadibna miiska ayuu saaray. hal mar ayuu baakadii cadaadinayaa, waaba baakadii oo isku jabtay oo aan wax turub ahna ku jirin. sidee ku dhacday? waa xeelad kale oo fudud. xeeladani waxa ay ku tiirsan tahay baakadda uu turubka ku shubay. waa baakad faaruq ah oo xagga hoosena uu ka dalooliyay. sidaas darteed marka uu turubka ku shubo si qarsoodi ah ayuu markiiba hoos uga daadinayaa, kadib waxaa soo haraya baakadii oo faaruq ah. sidaas ayuu isugu cadaadinayaa oo qof kastana uu ula yaabayaa. si fiican u fiiri. marka uu turubka ku shubayo baakadda, faryareediisa ayuu xagga hoose uga celinayaa si uusan turubku markaasba hoos uga daadan. indhasarcaadka saddexaad. xeelad indhasarcaad ku saabsan warqado turub ah oo ilbiriqsiyo gudahood isku beddelaya turub balaastig ah. waxaan ku xaqiijinayaa in xeeladan furfurideeda wax badan lagu jahwareeray, laakiin waqti kastaba ha qaadatee ugu dambeyn waxaa la soo helay khiyaanada uu indhasarcaadyuhu adeegsaday iyo caqliyadda sida uu wax u farsameeyay. indhasarcaadyuhu marka hore warqado turub ah ayuu miiska ku safay, kadib xeelado farsamaysan ayuu u adeegsanayaa, waaba turubkii warqadda ahaa oo balaastig isku beddelay. yaa badana. waa maxay xeeladda uu indhasarcaadkani ku tiirsan yahay? ma rumaysanaysid sharaxaadda aan ku siiyo haddii aadan si dhow ugu fiirsanin tallaabooyinka uu qaadayo indhasarcaadyuhu. markuu indhasarcaadyuhu warqadaha turubka ah ku safay miiska, waan qanacnay. ka qaybgalayaasha bandhigana sidaas oo kale ayay ugu qanceen in miiska waxa lagu daadiyay ay yihiin turub caadi ah oo warqado ka samaysan. laakiin u fiirso, marka ay gabadhu mid ka doorato turubka, gacantiisa bidix oo uu turubka badan ku hayo, miiska ayuu si qarsoodi ah hoos ugu dejinayaa. yacni isla ilbiriqsigaas ayuu kala bedelayaa turubka. turubkii warqadaha ka samaysnaa ayuu hoos gelinayaa isagoo soo qabanaya turub kale oo balaastig ka samaysan. laakiin kaamirooyinka toos uma soo qabanayaan gacantaas kale, sababtoo ah indhasarcaadyaha ayay xeeladiisa ku caawinayaan. si aan kuugu xaqiijiyo in turubka uu miiska hoostiisii ku kala bedelay, u fiirso marka uu dhameeyo xeeladda indhasarcaadka. mar kale ayuu gacantiisa miiska hoos ka marinayaa
si uu mar kale u soo qabto turubkii caadiga ahaa ee warqadda ka samaysnaa. markastana hal turub ayaa labada horinba laga kormariyey oo dadka lagu qaldayaa. tusaale, turubka warqadaha ka samaysan waxaa la soo kormariyey hal xabo oo plastic ka samaysan si loogu maleeyo in turubka oo dhan uu sidaas yahay. kala beddelkoodana kaamirada ayaa caawinaysa. indhasarcaadka afraad, turub ay wejiga hore wax uga sawiran yihiin oo isku beddelaya mid faaruq ah oo wejiga ka cad, iyo isla turubka oo inta la waayo mar kale si kadis ah uga soo baxaya afka indhasarcaadiyaha. Shim, gabadha garsoorka ka tirsan ee barnaamijka American Got Talent ayuu ka codsanayaa in ay hal turub qabsato kadibna saxiixdo si uu indhasarcaad ugu sameeyo. gabadhu turubka ayay saxiixaysaa, kadibna inta uu ka qaado ayuu turubka miiska ku tuurayaa. waxaa xiga turubkii la saxiixay oo markii kor loo soo qaaday noqday mid wejiga hore ka cad oo tirtiran. markaas kadib turubkii ay gabadhu saxiixday ayuu si kadis ah afka uga soo saarayaa. tani ma mid caqligal ahba? haddaba waa xeelad fudud. marka hore, inta aad muuqaalka si degan u daawatid, isweydii maxay tahay sababta uu Shim kurjinka turubka ah uu afka ula aaday. sirta ugu weyn ee ay xeeladani ku tiirsan tahay ayaa halkaas ka bilaabata. sidee haddaba? aan ku sharaxo. haddii aad si dhow ugu fiirsatid muuqaalka ku saabsan marka uu turubka gabadha ka qaaday isaga oo turub badanna gacanta ku haya, waxaad ogaanaysaa in turubkii uu halkaas ku kala bedelay. yacni turubkii ay gabadhu saxiixday ayuu tartiib inta hoos mariyey, ayuu kadib miiska ku soo tuuray turubka wejiga ka cad, isagoo ka dhigaya in uu miiska saaray isla kii ay gabadhu saxiixday. laakiin turubka ay gabadhu saxiixday wuxuu ku hoos jiraa turubka kurjinka ah, micnaha turubka badan ee uu gacanta ku hayo. isla waqtigan turubkii ay gabadhu saxiixday intuu laalaabay ayuu faraha ku qabanayaa si qarsoodi ah. kadib isagoo iska dhigaya in uu gacmaha xeydxeydanayo ayuu turubkii badnaa afka ku qabanayaa. laakiin xasuusnow, ujeedkiisu waa in uu turubkii uu laalaabay afka geliyo isagoo aan la fahmayn. sidaas ayuu turubkii saxiixnaa afka ugu soo reebay, kuwii badnaana miiska u soo saaray. markaas ka bacdi wuxuu dadka tusayaa turubkii uu marka hore miiska ku soo tuuray oo ahaa midka wejiga hore ka cad. qof kasta wuxuu u haystaa in kii la saxiixay uu yahay oo laakiin dib ka noqday turub wejiga ka cad. ugu dambeyn afkiisa ayuu ka soo saarayaa turubkii saxiixnaa. waa taas xeeladaas indhasarcaadka ee uu Shim Lim uga yaabsaday daawadayaal badan oo ka qayb galay bandhigiisa xiisaha badnaa. dabcan qaar ka tirsan daawadayaasheennu wayna soo weydiiyeen muuqaallo hore oo aynu soo gelinay. qaaca miiska ka soo baxaya iyo midka indhasarcaadyaha afkiisa ka soo qulqulaya xagee buu ka imaanayaa? waa dhab, waa su'aal meesha ku jirta. laakiin isla su'aashaas ayaa hore loo weydiiyey indhasarcaadyaha laftigiisa. Shim Lim wuxuu sheegay in qaacaasu yahay maado la marsado gacmaha ama shayga la isticmaalayo si qaac looga dhigo. wuxuuna yidhi qaacu ma aha xeelad gaar ah oo aan dadku ku indhasarcaadinayno, laakiin waxa uu naga saacidayaa marka aan indhasarcaad samaynayno in dadka dareenkooda lagu mashquuliyo. fadlan, haddii ay warbixintani ku xiiso gelisay, like saar. amar maaha, waa codsi. aragtidaaduna waa noo muhiim ee nala wadaag adiga oo mahadsan. sidoo kale waan kaaga mahad celinaynaa daawashadaada iyo waqtiga aad ku bixisay warbixintan. insha Allah waxaanu soo diyaarin doonaa warbixino kale oo ku xiiso geliya. inta ka horeysana, nabadgelyo.